barakaat saxaabay waxaan halkan maanta ka soo jeedin doonaa ama aan idinkula wadaagi doonaa cashir kooban oo daba socda cashirkeen insha allahu tacaala marka cashirkan weli wuxuu ku salaysan yahay ereyada qarsoon ee aan la dhawaaqaynin marka dhegeysi aboon insha allah halkan waxaa inoogu qoran simple English sentences with a silent words waa garanay ereyada aamusan please calm down fadlan isdeji calm ma dhahaysid calm down ayaad leedahay waxaan u jeednaa esha yar ee kalarka guduudan cafwan inta badan ereyada kalarka guduudan la dhammaantood waa waxaan isticmaali macnaha waa ereyada aan dhawaaqaynin aanu isticmaalayno please wuxuu dhahay calm down ma dhawaaqayaan ereyada kalarka guduudan laguma dhawaaqayo can you please wuxuu dhahay can you give me ma isiin kartaa half cup of tea half shaaha ma isiin kartaa half cup shaaha half shaaha ma isiin kartaa u dhahay you are talking u dhahay you are talking a lot today maanta wax badan ayaad hadlaysaa please walk slowly when you are crossing the road wuxuu dhahay please fadlan walk ereygan walk ma dhahaysid please walk slowly tartiib u soco slowly when you are crossing the road marka aad waddo gudbayso ama ka tallaabayso tartiib u soco dhahay wuxuu dhahay would you ereygan inta badan would you bay dadku u dhawaaqaan laakiin asalka dhawaaqiisu waxa weeye would you like to see the doctor ma jeceshahay inaad aragto dhakhtarka you should hadhihin waxaa dhahdaa you should wait for him for 2 hours waa inaad sugtaa 2 saacadood should waan aragnay iyadana laguma dhawaaqayo could baa la mid iyaduna can bay ka timaaday bahashan ereygani ka imaaday could you do this work alone ma awoodaa inaad qabato keligaa shaqadan inaad qabato take this joke to teach the student waa garanay take qaado this joke waxa weeye baasha tabaashiirta la yidhaahee inta badan ku qoraan mucalimiintu cashirka ee sabuuradda joke to teach si aad u barto the students si aad ugu barto ama wax ugu dhigto ardayda qaadaa la yidhi tabaashiirtan joke baan dhahnay iyadana this calf is very hungry calf inta badan sida libaaha iyo shabeelka iyo lo-da iyo ilmahooda yararka inta badan la dhahaa laakiin hadda waxaan uga dan leenahay ilmahan yar ee weylaha this calf is very hungry ilmahan yari ee weylihii zaaid buu u gaajaysan yahay ama aad buu u baahan yahay kaa garanay the color of the egg yolk is yellow wuxuu dhahay the color of the egg yolk waxaa la yidhahaa dhaacaanka ama fuluudhka ama dareeraha xabka ee ku dhex jira ukunta is yellow waa jaalle waa garanay take the color of the egg yolk is yellow taking the last month waa garanay kabtan waa saxaynaa tan wuxuu dhahay one of his limb bidan way qarsoontahay inta one of his limbs was badly wounded one of his limb was badly injured limbs waxaa la dhahaa adimada ama lugta ama gacanta ama xoolaha ha noqdaan afarta adin ku socda ama dadka gamcood hataa 4 limbs aa la dhahaa inta badan afarta adin one of his limb was badly injured one of his limbs was badly wounded mid afartiisa adin mid ka mida yaa si xun u dhaawacmay ayuu dhahay intaas ayaan ku daynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi haddii la yidhaaho waxaan ka codsanaynaa wixii aan khaladnay ama noocu dooniba ha noqdo isbeelinka iyo maxaan ku dhahay akhriska iyo nooc walba inaad commentiga aad ku soo saxdaan insha allah aad baan idiin salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu